بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وهبنا خياري كسود هذا برامجكني دعوينك عالمك صومري هذا دعوينك عالمك وكسوجي هي آيات برامجكن وجبنا دونتان أسبوعنا هالمر أيو سوقلتنا إمكنا وحينو kusoo qaadan doonaa inuu uga sheekayn doonaa barnaamijkan gabiyahantiisaba harada aadka u wasakhaysan ee loo yaqaan harada madow magaceeduna yahay Karakacha iyo magaca Karakacha macnihiisu wuxuu yahayna isagana halkan ayaad ku ogaan doontaan waa barnaamij gaar ah oo markasta aynu halkan asbuuc ka samar soo deyn doono waxyaalo ka qarsoon oo caalamku uu soo marayna aad ku ogaan doonto laga yaabo in adiga meelahaasi aad booqato aduu nafta eebe kugu simo iyo siyaabihi aad iskaga ilaalin lahayd haradaas Karakacha muddo 30 daqiiqo kaliya oo halkaas ku sugnaatana maxaa adiga ka soo gaari kara ama in ka badan hadaad biyaheeda haradaas darsato gacantaada ama aad jirkaaga marisana maxaa kugu dhici kara intaas oo dhan waxaad uga bogan doontaa barnaamij dhacdooyinka caalamka fadlan la joog oo channelka subscribe saar muuqaalka ugu horeeyana waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkan harada loo yaqaan Karakacha ee ku taala bariga Ruushka walaal subscribe-kaagu waa mid aad noogu muhiim ah ee noo saarmaysanid harada aadka u wasakhaysan caalamka oo dhan ee loo yaqaan Karakacha haradan waxay ku taalaa waqooyiga dalkaasi Russia ayay ku taalaa wadada loo maro sidoo kale waxa loo yaqaanaa Karakache ama Karakach inta badan waxa lagu dhajiyay derbiyo shub ah oo aad u dhaadheer waana haro aad u yar oo loo isticmaali jiray qashinka hubka nuclear-ka ka soo hara halkaas waxa ka buuxa shucaac aad u tiro badan oo loo yaqaan maadada platinum plan loo yaqaan oo 65% shucaaca adduunka looga cabsi qabo waana mid kamid ah xarumaha hubka nuclear-ka ugu weyn ee midowgii Soviet intii u dhaxaysay ay ahayd sanadii 1951 ilaa iyo sanadii 1953 waxay ahayd hare aad u weyn oo lagu kaydiyo haraga nuclear-ka waana harada dabiiciga ah caalamka ugu weyn ay ahayd taasoo awood u lahayd inay buuxiso ama qaboojiso raktarada bateriyada waaweyn ee mishiinka lagu bacrimiyo hubka nuclear-ka oo isla markii ahayd mid aad u qaboojin karta maanta harada si weyn ayaa loo buuxiyay oo way aad ayay u buuxsan tahay hub shuba oo aad u dhaadheer ayaana ka buuxa halka saameynta halkaas ay ku reebeen shucaaca ayaa noqonaya mid aad looga fogaado wasakhda shucaaca ee xeebahana waa mid aad uga sareysa una aad u wasakhaysan sidoo kale meelaha u dhow ee oogada meel aad u dhow ama joogeedu sareeyo ayaa lagu kaydin karaa qashinka harada nuclear-ka oo dhan haradan oo dhan waa ay ku jirtaa magaalada deriska la ah ayaa kamid ah iyo deegaanka kale ee gebi ahaanba haradan ka baxsan waa xadka ayay ku taala sida kaliya ee sharciga ah ayaa la yiri waa in lagu galo iyada oo loo marayo isbaarooyin badan hadii aad doonayso inaad halka aad booqato ama aad YouTuber tahay oo vlog iyo wax la mid ah ka soo sameeyo ama sawir halkaas ku soo gasho dhanka kale maxaa kugu dhici kara hadii aad ku dabaalato haradaas Karakacha loo yaqaan waxay aad uga fogtahay silsilada buuraha Ural ee koonfurta dalkaasi Russia waa aad khatar u ah oo wasakhaysan Jimoni harada loo yaqaan ayana ahayd mid ka sii wasakhaysan Riforia 9 ayaa loo yaqaan ama F9 waa kaydka biyaha ugu weyn waana mid kamid ah halka biyaha kaydadka ugu weyn ee dilaaga ah ee caalamka aynu imika ku sugannahay aad bayna u wasakhaysan yihiin 30 daqiiqo oo halka aad ku qaadato ayaa maxaa kugu dhici kara waxay ku siin doontaa qiyaas dil shucaac ah oo 300 oo routine shucaaca loo yaqaan in ka badan ayaa kugu filan inay isla markiiba ay ku disho halkaasi adiga aad ku qurbaxdo waxa sidoo kale
ay samaysay shilal aad u tababadan oo sababay kuwa aad u tiro badan oo sababay jooga oo aad u sareeya iyo musiibooyin sababay deegaamada ku xeeran oo aad u wasakhoobay iyagana qashinka shucaaca nuclearka awgiis magaca Karakache micnihiisuna wuxuu yahay biyihii madoobaa ama madow kuwaas oo ay ku qoran yihiin luqado kala duwan oo caalamka waqooyi galbeed ee waxay ku taalaa Turki meesha loo yaqaano oo ay ku jiraan tamarta sawir ama muuqaal hot humidity loo yaqaano kaas oo isagana aad u wasakhaysan fadlan wixii macluumaad ah ku garsatay commentiga noogu reeb daawade wixii kale aad jeceshahay ama meelo kale oo khatar ah oo adiga aad danayn lahaydna commentiga noogu reeb nabaday